بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، شيخ عبد الحليم وما سنتهي هذه تيمكاغا xanuunkan ama musiibadan shaki ma leh saameyn bay ku yeelatay dhinacyo fara badan oo ka mid ah cibaadaadkii iyo mucaamalaadkii weliba ay dadku kullina masaa'il sharci ah ka dhalanaya oo de shareecadu waa noloshii dadka waay wixii nolosha dadka saameeyo markaaba shareecadii buu lugta la gelayaa masaa'il ka mid ah ayuu saameynayaa saad sheegtayba waxa ugu muuqasho badan ee hadda saameyntu ku dhacday waa xiritaanka masaajida oo saameeyey salaadihii masaajida lagu wada tukan jiray salaadii jamaacada. Salaada jamaacadu waa salaado ilaahay jideeyey in la wada tukado. shanta salaadood ilaahay wuxuu u sameeyey goobo masaajid lagu magacaabay oo dhulka ilaahay meelaha ugu khayr badan ah oo alla ugu talagalay in la isugu yimaado oo lagu wada tukado. salaado kale oo jamaacada ahayn aan faraa'ida waajibka ahayn oo sunanana waa jiraan oo iyagana la isla tukado, laakiin asalku waa kuwan faradka waajibka shanta salaadood ah. In la isugu yimaado masaajid oo salaadaha jamaacada lagu wada tukado xukunkeeda culimadu waxay ka leeyihiin aaraa kala duwan bitaxdiid, ma waajibba, fardu caynba, fardu kifaaya. laakiin xagga nusuusta markaan aadno nusuusta aada bay u adkaysay sanadaha jamaacada iyo isu imaanshahooda. nabigeena sal alla alay wasalam waa kii hamiyey ragga guryaha ku tukanaya inuu guryaha ugu tago oo ku gubo, kamaa fi saxiix wagayri ku yimid. waa ka qur-aanka kariimka inooga sheekeeyey ahamiyadda ay leedahay salaada jamaacadu goobta dagaalka marka lagu jiro oo weliba muslimiinta cadowgooda is hor joogaan inayna salaadii jamaacada ka tegin halkaas oo ay salaatul khoof qaab loo jideeyey loo wada tukanayo, haddana laysu waardeynayo, laysu ilaalinayo ama lagu dagaalamayo way shareecadu jideysay. yani waxay tilmaamaysaa haddii uun goob uun salaada jamaacada dadka laga fasixi lahaa, goobtaa dagaalkaa mudnaan lahayd in laga fasaxo. marka salaada jamaacadu waa salaad sidaa shareecadu u adkaysay. xukunkeeda waxay qabaan in badani inay tahay fardu kifaaya oo muslimiinta qaar ka mid ah hadday la yimaadaan kuwa kale inuu wujuubku ka dhacayo ay rumaysan yihiin madaahibta intooda badan. daahiriyada iyagu waxay qabaan inuu fardu cayn oo ruux walba, dabcan raggii baa laga horada, raggii wax qaangaadhka ahaa, dumarku iyaga guryahooda u kheyr badan. marka ma fardu caynbaa, ma sunna mu-akado waajibka u dhowbaa, ma fardu caynbaa oo ruux kasto laasimku ah sida daahiriyadu qabaan. fahamka way ku kala tegsan yihiin culimadu, laakiin nusuusta marka la fiiriyo waa masale aada loo adkeeyey way shareecada marka la yidhaahdo in salaada la isugu yimaado, jamaacada la isugu yimaado. xikmadda ku jirtaay waxay tahay isla tukashadu shaciiro waaye, waa shaciiro yani waa muuqaal diintii iyo dadkeedii iyo calaamado muujinaya wey, diinta muuqashadeedii bay qeyb ka tahay. waa midda labaadee isla tukashadaasi salaadii bay waqtigeedii iyo gudashadeedii bay ilaalinaysaa oo hadduu ruuxba meeshiisa isaga tukado iyo haddii la wada tukanayo wayna kala fududdahay, waqtiguna waa kala ilaashay. xikmadda waxaa ka mida isu imaadka muslimiintu ay isu imaanayaan masaalix kaloo far badan baa ka dhalanaysa oo waxaa ka dhalanaysa maalan isbooqashadoodii,
kulankoodii, is-aragoodii, is-caawintoodii. Masaakiin fara badan baa ku nool isu imaadkaas oo hadda yani geed weyda iska noqotay marka masaajidii la xidhay. way isku dhex nool yihiin, muslimiintu isku dhex nool yihiin. marka isu imaadkaasi muxuu ahay masaalix kaloo fara badan iyo xikam kaloo fara badan oo sharci ah ayaa ku jira.